Een, Waxaan doonayaa inaan video yar kooban idiin duubo oo la xiriira barnaamijkeenii milicsiga sooyaalka. Halkan waxaad ku arkaysaa niman la dhaho King African Rifles oo markaa Ingiriisku uu sameeyey boqortooyada Ingiriiska ee markaa wadamada badan ee Afrika gumeysanaysay. Waa niman madow ah oo laga soo ururiyey dhulka Ingiriisku gumeysan jiray, maanta loo yaqaano Commonwealth-ga. Xilligaa loo yaqaanay British subjects-ka loo yaqaanay. Halkan nimanka waxaa la sameeyey dabayaaqadii qarnigii 18aad 1888 ilaa dhowr iyo 90kii. Muhiimadda aan uga dalnay waxa weeye inaan idiin sheego nimanka markii la sameeyey wadankii labaad ee loo diro wuxuu ahaa wadanka Soomaaliyeed marka laga yimaado Mauritius. Wadamo fara badan baa loo diray ilaa iyo galbeedka Gambia ilaa dagaalkii labaad bay ka qayb galeen. laakiinse muhiimadda uuna haddeer aan ugu weydiisinaya waxa weeye inay ka haddii ay bukuuran yahay ay ka qayb galeen sheegay waqooyiga Soomaaliya muddo 20 sano ah. Marka waa kuwan iyagoo leh magaranayay the first magaranayay and the longest campaign fought by the new regiment waa ciidamada King African Rifles loo yaqaano oo wadamada Afrika kala duwan laga soo ururiyey. wuxuu ahaa magaranayay dagaalka ku dheeraa ay qaateen waxay kii waqooyiga Soomaaliya ka galeen amba Somaliland waxa loo yaqaanay laga soo bilaabo 1900 ilaa 1920kii ee ka dhanka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan maamulaha iyagu ku sheegaan iska dacayada dadka gaalada ay ahayd. The mullah waxay revolt threatened stability of the Somali region, yani علشان kacdoonkii daraawiishta ay sameeyeen iyo jihaadkii ka dhanka gumeystaha wuxuu uu khalkhaliyey deganaanshaha geeska Afrikada bari. علشان si cad haddaan u sheego waxa weeye jihaadku sayidku ku qaaday Ingiriiska wuxuu khalkhal geliyey joogitaankii Ingiriisku gumeystuhu joogay waqooyiga Soomaaliya. All the color battalions except one علشان waxay leeyihiin guutooyinkii ciidamada madowga la isu geeyey kulligood way ka dagaalameen meesha ilaa afar gaas marka laga reebo amba afar urur. Marka muhiimaddu waxa weeye inaad ogaataan dadkan magaranaysa calan casta ay Hargeysa jooga carruurta waxa khaldan ka dhacay waxa weeye mar walba u sheekeeyaan koonfurta ayaa maanta Burundiis iyo baa ilaalinaya iyo Ugandis iyo wax magaranayay gafar culus iyo waxay sheegaan iyaga 120 sano ka hor baa waxa berberiya Hargeysa Burco daraawiishta ka ilaalinayay Ugandis laga keenay Uganda iyo Kenya iyo dad laga keenay South Africa iyo dad ururu soo qaybay Suudaan baa laga keenay. waa dad magaranaysa madow ahaa laga keenay dhulkii dhammaa uu gumeysanayay magaranaysa Ingiriisku dadkii madowga askartii madowga ilaa iyo gaaraysay 1500 ilaa iyo 3000 oo askari. magaranaysa wadamo fara badanna inta ka badan ay joogeen ilaa iyo dagaalkii labaad xataa 40,000 wax ka badan baa loo qaaday. laakiinse magaranaysa waqooyiga Soomaaliya waxaa la geeyey ciidamo dhowr kun oo dadka madowga ah oo daraawiishta ka ilaalinaya inay qabsadaan waqooyi galbeed oo magaranaysa ay bariga ka gudbaan. Marka waa kuwan iyagiyo magaranaysa ay sawiradoodii waa kuwa halkaas ka arkaysaan. sidoo kale waa kuwaas dadkii ilaalin jiray berberiya Hargeysa ee xilligii Ingiriiska. waa kuwa iyaga markan dagaalkii labaad ee dunida loo wado magaranaysa. dadkan madowga ah oo kaliya waa kuwa meelay xusuusta memorial loogu sameeyey. dadkan madowga ah oo kaliya maysan ilaalin jirin deegaanadan hadda ay joogaan calan casto laakiinse waxaa kaloo ilaalin jiray magaranaysa dad kala diina oo xataa dad hindi laga keenay hindiya. waa kuwan kan askarigan bilad lagu siiyey dagaal daraawiishta la galay gobolka Sanaag kala galay. The recipient was Indian soldier of the Hindu faith. marka xataa hindu ba iyaga ilaalin jiray xilligaas oo marka bilada lagu siinay oo kamid ahaa xataa guutadu sheegaya guutada 113aad infantryga ciidamada infantryga British Indian Army laga keenay berbere laga soo dejiyay. marka dadkan magaranaysa maanta le waxbay magaranaysa dadka la ilaaliyayo magaranaysa iyaga xilligaas la ilaalin jiray 100 iyo magaranaysa 24 sano ka hor baa la ilaalinayay magaranaysa.